waa dugsi lagu barto Quraanka Kariimka qowlkii Eebbe. Muddo 24 sano ah ayuu macalinkan barayaa Quraanka Kariimka ardada Soomaaliyeed, halkanna uu ahaa dugsi ay ka aflaxeen boqolaal ka tirsan dhalinyaradii ku soo barbaartay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Balse dugsigan oo ka mid ah dugsiyada qadiimiga ah ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ma helin ka warqab iyo xarun ku habboon oo caruurta wax lagu baro. Macalinka dugsiganna duruufaha iyo waayaha ku xeeran uma saamixin in goob bilicsan oo ku habboon uu u helo caruurta uu macalinka u yahay. Wuxuuse naawilayay in maalin ay ka caawin doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Magacaygu waa Macalin Cabdiraxmaan Macalin Mursal Sheekh Maxamed. Dugsigan waxaan ku hayaa halkan 24 sano. Muddadaas dheer ayaan dugsigan halkan ku hayaa. Haddana waxa waaye marka hore dawladda Cabdullaahi Yuusuf baawur baan naga galay halkan keenay, halkan haddaan keenayn haddana dhisma aan u raadanay waa helnay. qaabka hadda uu dhisay dawladda Cabdullaahi Yuusuf ahayd waan soo wareegnay ilaa kadib lama taaban. Haddana waxaan codso aan u galin aan wala hadlayna dadka muslimiinta ah oo muxsiniinta ah inay dugsigii haddana dhistaan labaad nooga sameeyaan xaafadii dugsiyadii dhammaan haddii la yiraahdo waa la dayactiro waa la dhisay ama baacweynaha laga dhiso ama burkeeta laga dhiso xaafadaha dugsiyadooda waa la dhisay. Anakana waxaan rabnaa in dugsigii naloo dhiso ardaydii ka baxdayna haddii la yiraahdo waa dal dibad waa wada joogaan, qaar jaamiciina waa joogaan. Marka waxaan rabnaa dugsigii haddana in naloo dhiso mar kale dib looga dhiso shamiindaatigiisa iyo safiitooyinkiisa iyo wixiisa dhammaan naloo hagaajiyo ayaan rabnaa haddii la yiraahdo biidin Ilaahi Kariim. 24 sano oo uu ka howlanaa waxbaridda iyo barbaarinta caruur Soomaaliyeed ayuu iminka u qayla dhaaminayaa in dib u habeen ballaaran loogu sameeyo dugsigii ay ka aflaxeen dufcado kala duwan. muxsiniintii meel kasta ay joogaan dal dibad ay joogaan waxaan ka rabnaa dugsiga degdeg inay nooga dhisaan. Teeda labaad haddii la yiraahdo dugsiga waa dadka hadda ay u badan yihiin dugsiyada buugta ay u badan yihiin. Anaka dugsiga buug bani dugsiga loox baan nahay, looxan ku dhignaa. looxdii ana ku soo waxbaran baan weli daba taaganahay. aasaaskii wadankeena saasay had weligeeda looxa lagu dhigi jiray, looxa lagu baran jiray. weli looxdii aan daba taaganahay. isbedel ma aanan ku sameyn. shamiindaatigiisa iyo dhismihiisa iyo wixii safiitooyinkiisa marwaxadiisa kullu haddana dadka waxaan ka rabnaa muxsiniinta haddii la yiraahdo inay say had meesha ugu yaala awalba muxsiniin oo saadana muxsiniinta ay noo dhisaan sidii oo kale ay noo garab qabtaan ayaan rabnaa. haddana meeshii saasan hadda aan isugu nimid khayr Allah idiin siiyo. wuxuu ku yaalaa dugsiga xaafadda Wadajir ku yaalaa, degmada Wadajir ku yaalaa, qaasatan xaafadda Janar Daawud ku yaalaa, qaasatan haddana saldhiga dhinaciisa ku yaalaa xaafadda Qurac la yiraahdo. dugsiga Qurac ku yaala la yiraahdo Qurac. dugsiga magaciisana waxa la yiraahdaa Mucaad bin Jabal, madrasatu litahfiid alquran Mucaad bin Jabal la yiraahdaa. macalinka fadhiina waa anigoo hadlayo Macalin Cabdiraxmaan Macalin Mursal Sheekh Maxamed waaye. 24 sano hayaa dugsigan aan dhex fadhiyaa alxamdulillah. Macallimiinta dugsiyada Quraanka Kariimka ah oo dadaal badan galinaya baridda iyo barbaarinta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwa u baahan garab istaag iyo kaalmeyn joogto ah.